marunbaa Soomaaliyeed in uu seedigeen noqorabo daafaca kooxda Manchester City ee wadanka Portugiiska Ruben Dias baraha bulshada ayaa lagu faafiyay iyagoo wada casheynaya haweeneyda Soomaaliyeed ee wariyaha ee lagu magacaabo Maya Jamac iyo laacibka reer Portugiis ee 27 jirka iyagoo jooga jasiiradda loo dalxiis tago ee loo yaqaan Ibiza ee ku taal wadanka Portugiiska watuma Maya Jamac waa gabar Soomaaliyeed oo aabaheed Soomaali u yahay hooyadeedna ay tahay Scottish iyo Swedish isku dar يعني أبها دلي هويدا دشي هويدا مركز الفيريو مايا جامع ويسودي برامج عانه أو كهذا جعلك أو لوي قانون لوف أيسلان أو كبحة تلفزيون برامج كان أيا إسبارة دتك جعل دونكا وحنا برامج كان ودي رجليا دتك إن إسبرتان جعلنا حرس أي سميان أيوة كتر تما دول عدينتا يسلو كله حماسة جعلك مايا جامع ويكون تمجال بريستول يدلك إنجليزكا waxaana dhalay Aaba Jamac oo noloshiisa ku qaatinta badan xabsi kadib markii loo diiwaan geliyay rabshado dagaal oo ka sameeyay halkii ay ku wada noolaayeen gabadhan ayaa la sheegay 12 sano iyadoo jirtay inay jirtay xiriirka aabeed ee la lahayd oo aysan ku booqan xabsiga waxaana ay tiri waraysi ay siisay Guardian 2017 maana dareemin aabalaan sidoo kale maana dareemin wax dhibaato ah oo aabahayga inuu iga maqan yahay ku saabsan sababtu waxay tiri qoyska aabay uu ka soo jeedo ayaa gacan weyn ugu siiyay karuumida aniga iyo walaalkayga gabadhan ayaa la sheegay hooyadeed oo lagu magacaabo Sadia inay ugu magac dartay qonka ay reer Mareykan ee loo yaqaan Maya Angela xilliga hooyadeed dhaleysay waxay jirtay 19 sano gabadhan iyo hooyadeed xiriir weyn ayaa ka dhaxeeya waxaana mararka qaar ay soo fariistaan telefishinka barnaamijyada doodaha dadka ay isugu yimaadaan Maya Jamac waa 30 jir waxaana ay kala tageen nin caana oo madow ah oo fanaan ah Soomaaliya soo aragtaan sidigan inuu noqdo laacibka caanka ee reer Portugiis Ruben Dias yarab farinta